waxaa jira 2009 markaan shabaabka islaynay hadal aan dhibaa shabaabku qof kasta oo diin lahaa culimo ahaa xurmad shacabka dhexdiisa ku lahaa iyaga wax ka ahaa hebelo mana raacaysaa maya murtad baata waxaa lagu ridaynayaa waxay tahay masaalixdoodii buu ka hor yimid soo maa waxaan u bixinay takfiir bilmaslaxa waa takfiir ama riddo ku saabsan maslaxadooda maanta dawladda federaalka ee jirtay 8 February maxay noqotay haddii sida ay rabto riyadeeda oo maanzalaha bi'am suldaana xuluma aad ka hor timaado khaynul wadan baa tahay camiil baa tahay dad kale aad u shaqaysaa iyagiyo takfiir shabaabku maanta maxay kala duwan yihiin laa farqa bayna wax farqiya oo maanta u dhaxeeya dawladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro kuwana way gaalaysiiyaan kuwana Soomaalida ka saaraan wax u dhaxeeya ma jiro labadaas ay noqotay waxa ma jiro yaal waxaa jira dawladda federaalka ma garanayso marxaladihii waddankaani uu soo maray madaxda maanta meesha joogta ma garanayaan waddankani dhibaatada laga soo maray iyo meesha jooga shalay iyadoo waddanka xaaladdu degan tahay bay ka tageen habartay baa lagu baxay waa la soo noqday waxaa lagu yidhi sidanaysan waxaan aad u qariibsanayaa waxaa la baabi'iyey dhammaan institutionadii dawladdu ay lahayd waxaa lagu xadgudbay dastuurkii waxaa shaqadiisii waayey baarlamaankii waxaa shaqadiisii waayey garsoorkii iyo sharcigu inuu sarreeyo waxaa faragelin lagu sameeyey doorashooyinkii dowlad goboleedyada waxaa dib loo burburiyey sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya dowlad goboleedyadii iyo dadkii tacabka lagu soo dhisay wixii la dhisayay waxay noqotay in dib loo wada burburiyo maxaa loo burburinaya maslaxada iyadu sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelay sidan ay ku jirtaa sidan aan yeelay waa tii shabaabka ee ahayd haddaad dantayda ka hortimaado murtad baa tahay haddaad yeeshaan Sheekh Xuseen Furaad tahay muslim baa tahay muwaxid iyagana maxay noqotay waxay rabaan haddaad ka hortimaadana khayr wadan baa tahay haddaad tiraa war waxani nacamla haddaad noqotana adiga ninkii ugu fiicnaabaad waxay burburiyeen dowlad goboleedyadii waxay ku tunteen dastuurkii waxay dib adeegii garsoorkii la baabiyey saraynta sharciga meesha ka baxday waa wadankii wuxuu gaaray inaan la garanaynin cid xukunta maanta ka wasiirka haddaad weydiiso waxa yaala kuma sheegi kara ma ogi buu leeyahay kan wasiirka warqadda akhriyay warqadda waxa ku qoran xataa waa loo dhiibay ma garanay waxay soo taageen oo joojiyeen shabaabka dagaalankiisii waxaan odhan karaa iyaga shabaabku mar hadday akhlaaqiyan xagga dhaqanka ka isaga egyihiin waxyaalo badan oo heshiis iyo xidhiidhana inay jiraan maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisii oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dawladda iyo shabaabku inay hal cod u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel u wada taalla ay completely dagaalka shabaab way joojiyeen dhulkii shalay xorta ahaaba maanta gacanta shabaab ku wada jira intaasoo dhan maxaa ka daran ha joojiyeen waxay dib ugu noqdeen qof kasta oo xurmad iyo karaamo lahaa inay maanta dib ugu ciyaareen karaamadii uu lahaa iyo xurmadiisii Jubbaland markaan u soo noqdo markaa iyo dhibaatooyinka dawladdu ay ka geysatay waxaa ka horreysay dowlad goboleedyadii ka horreeyey nin walba in la yidhaahdo sidaa iyo saasaan dhamma yeelaysaa aw shariifo mafadow ayay iska soco ama in qaado ama si kale aan ku yeelayn taasi waxay gaadhay Puntland dhibkii laga geystay dadkii lagu laayay koonfur galbeed galmudug waxa maanta ka jira Hirshabelle iyo waxa lagu hayo torture garaynta waxaasoo dhan markii laga soo tago Jubbalandna waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saarayana ugu badan la qaado sida yeel war hay ra'yi ma leh ma ra'yi mili warkii Bush 11 September ama anagana raac ama cadowgana noqo intaasay noqotay jawaabta la siinay wiilashay siinayna wiilal yaryar oo dawladda wax ka yaqaana
lacagta lala horordaya dadka leeyahay hebel oo lacag qaado iska tag maxay macnaha looga jeedo waa hanjabaado iyo dawlado kale iyo in loo soo kaxaysto oo la yiraahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa oo waddanka xaaladdiisu ay halkaa gaadho waxay noqotay marxaladaha dhabta ah ee dawladnimadii Soomaaliya maanta ay dib ugu noqotay Jubbaland taasaa lagu sameeyay doorashaan galay markaan diidnay inaan waxyaalaha badan ee qoorsiga iyo gudnimada diido waxa ani maanta sharafiya reer Jubbaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaan u meel marin haddaan maanta lacag qaato oo saaka la yiraahdo lacag 20 milyan Axmed oo qaado afkaygu hal qaaduu qaadaa Sooma wuxuu yiri Nelson Mandela malqacad baa afkaygu qaadaa South Africa afkayga ma geli karto hal qaada afkaygu qaadaa macna ma jiro markaa loo gorgortami karo wax loogu sameyn karo waxaan ku yiri dawladda federaalka ahayd iyo ciiday soo direysay waraan isu nimaadno wada fadhiisano dastuurkana inaga dhaxeeyo buugga yarka aynu ku heshiin qof walba xuquuqda dastuurku uu siinaya xaqaad hadduu intaa qofku diiday xagee la geeyay haddii dastuurkii la karaameyn waayo haddii dawladnimadii la waxayn waayo war habeen lagu wada hadlay ma soconaya ka soo cadba waxaan dawladnimadan idin ogol lahay mas'uuliyadda leedihiin baan garanayna waxaad xambaarsantihiin baan garanayna shay kasta aan garanayna laakiin waxaan rabnaa in sharcigan aan kala sharci haddii lagu kala dhaqmayo baarlamaankana saanadka looma galay adeegii garsoorkana laamihii dastuuriga kulligood lama baado maxaa waxaasoo dhan loo samay maalintii dawladdaasi ay lugta la soo gashay waxay ku riyootay 2020 inay soo noqoto dastuurka la bedelo dawlad santar oo xoog badan laga dhigo 20 sano soo socota waddanka waad xukumaysaan baa leeyahay aniga qurbo joog ma dibadda maana tahay laakiin waxaa la igu yiri Mareykanku waa meelaha dimuqraadiyadda laga soo barto waxaan la yaabana mas'uuliyiinteedu Mareykanka waxay ka soo barteen ahsan dimuqraadiya oo caalamka maanta ka jirta yaa hadda bartaan yaa macallino siyaasad farqaawo bilaa calaykum afarqays dimuqraadiyadda laga baranayo maxay ee maanta la nagu maamulaya shay gariib aad bay u tahay wax aad la garan kara ma maxay timid markaa maanta markaan war doorashadaan leenahay sharcigaana siinayaanu qabsanno musharaxiinta hala keeno waxaa la yidhi maya noo jooga sidan hala yeelo diyaaradaha ima waa la duqayn waa la qaban kan kulli laga soo tego waxay gaadhay markii dambe dhibaatadaad ogeydeen wasiir intii shalay dacwo lagu soo oogay oo la yidhi dacwadaasaa lagu haystaa oo loo yeedhay oo la yidhi niyow dacwadaa Sheekh Xuseen Furaad ka tahay waxba laguguma laha raalliahow waan kugu khaldanay oo ka soco la yidhi oo la yidhi waxaa sabab yidhi waxaan ma samayn karo waa intuu sawaafkiisa ka lahaa waxaani ma yeeli karo waddankan soo dhisayna dib uma burburin karay in la yidhaha ma eedaysanaata intii loo yeedho dawlado kale loo soo maray la yidhaha war ii xidha meel loo geliye kadibna maxay noqotay gobolkii in la yidhaha dib ha loo burburiyo waxaa dhibaato noqotay ninbaa islaam baa wiil dhashay abkan buu ahaa qof ilmahan hadlin buu ahaa waxay tii ilaahu iga hadlin wuu aamusnaa hal mar buu hadlo wuxuu yidhi hooyo sidii kale ma ku yeelaa waxay tihi ilaahu iga aamusiin waxaa la yidhi dawlad federaalaan nahay dawlad buuxda oo kana waa in hawadii lanoo soo celiyo qoladii aka way haysatay noo soo celiya waxay ku bilaabeen diyaaradda xaggaa ma mari karto shacab ma qaadi karto waad ogeedeen Kismaayo iyo Dhoble iyo wixii ka taagna maxay hadda ku dareen gobolka Gado Garbaharey Baar Dheere Doolow luuq intaasoo diyaaraduhu tegi jireen buur dhuubo hal diyaarad oo maanta tagtaa ma jiro maxaa loo joojiyey diyaarad ciidan wadda keliya tagi karaysa sababtoo danta dawladdu kuma jiro kuway soo qaadeen ay xareeyeen maamuladii bay ciidamo u isticmaaleen oo qaadeen oo xareeyeen oo ciidamadii deegaanadii ugu xorsanaa oo aad daraaf gareynaysay luuq iyo inta u dhaxaysa balad xawo habeenbadhaad soconaysay iyo maanta intay ciidanku burburiyeen oo qaadeen oo isku direen bay maanta intay baxeen bay wixii ciidana haramcad iyo shabeel iyo dhibaato waxa la leeyahay ciidan hayeen bay soo qaadeen waxa leen dhulkaasaan xoreynayna yaa laga xoreynaya ma shabaab baa loo xoreynaya mise waa laga xoreynaya that means caqiidadii iyaga iyo shabaabka ka dhaxaysa aan anu u eedaynaya